السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان waxaan ku baranaynaa farqa u dhaxeeya class, instance iyo static method. waa saddex method oo kala duwan marka habka loo isticmaalo ayaanu ku baranaynaa. Instance method horaan usoo aragnay waa common method type weyn waa inta badan kala isticmaalo marka waxaad isticmaalaysaa self-ka ayaad isticmaalaysaa horaan usoo aragnay. Class method isaga waxaa la isticmaalaa marka waa decorator wax la dhaho oo baran doono oo ah class method kaas aynu isticmaalaynaa waana operates on the class marka class ku xiriirsan yahay rather than the instance kuma xiriirsana like class ku xiriirsan yahay. waxaana la isticmaalaa CLS meeshii aan self-ka isticmaalaynay CLS oo u taga marka classkii. Static method waxa weeyaan isagu ka gooni yahay waa sidii adigu class method laakiin waxaa la isticmaalaa decoratorka static method ayaa la isticmaalaa marka tusaalayaal aynu arki doonaa hadda ku saabsan habka loo isticmaalo. halkan waxaan ku haysanaa class la dhaho bank account oo leh class attribute interest rate oo 0.2 ah markaynu waxaan u samaynayno objectiga waxaan usoo diraynaa account numberkii qofka magaciisii iyo balancegii ayaan usoo diraynaa. halkan waxaan ku haysanaa waa instance method horaan usoo dhiganay markaan u yeedhiyo methodkan waa inaan isticmaalaa instancegii. waxaan leenahay self iyo amount. self waxaan hore usoo aragnay inuu yahay instancegii. amount ayaan eegaynaa amount hadduu ka wen yahay 0 marka balancegii ayaynu ku daraynaa amountgii. marka hadduu balancegii marka hore 0 ahaa oon konton usoo dirno konton ayuu noqonayaa. haddaan 100 usoo dirno konton kale haddaan usoo dirno marka 100 ayuu noqonayaa. kabacdina waxaan print garaynaynaa lacagtan deposit garaynay. marka qaybtan waa instance method horaan usoo aragnay. waxaa ku xiga instance method kale marka qofku lacagtii la baxayo withdraw uu samaynayo waxaan usoo diraynaa amountgii. marka waxaan eegaynaa if amountgu hadduu ka yar yahay 0 ama hadduu ka wen yahay 0 ama ka yar yahay balancega. marka balancegu waa instance attribute oo halkan aan kusoo samaysanay. waxaanu eegaynaa marka inuu 0na ka wen yahay balancegana ka yar yahay. hadday sidaas tahay marka waxaanu ka jaraynaa balancegii amountga kabacdi waxaan print garaynaynaa lacagta aan la baxanay iyo balancega cusub. kaasina waa instance method horaan usoo aragnay. kan ku xiga waa isna waa instance method oo waxaynu nidhi marka waxaanu print garaynaynaa informationkii display account. marka account number self.account number holder name qofkii accountka lahaa iyo balancegii. intaas oo dhan waa wada instance methods. waxaan halkan u imanaynaa marka class method. class method dushaas wuxuu kaga duwan yahay instance methodkii. halkaas waxaan gelinay decorator la dhaho class method. kaas wuxuu ka dhigayaa marka class method halkanna meeshii self aan ku qoraynay waxaan ku qoraynaa CLS. okay CLS kaas iyo new rate-ka oo ah marka rate-ka cusub. marka waxaynu rabnaa inaynu bedelo class attribute-kii interest rate-ka ahaa kaasaynu bedelaynaa. marka waxaan samaynaynaa marka waxaynu eegaynaa inuu rate-ku ka yar yahay ka wen yahay 0 kana yar yahay 1. marka hadduu sidaa yahay waxaan odhanaynaa CLS oo u tagan classkii. marka meesha instance ka isticmaalin halka CLS ayaan ka isticmaalaynaa waana classkii. marka wuxuu la mid yahay inagoo nidhi bank account oo isticmaalna magaca classka laakiinse CLS ayaynu isticmaali karnaa meeshii aynu ka qor lahayn bank account. halkaas waxaynu ku bedelnay marka rate-kii waxaynu print garaynay interest rate updated CLS oo ah class name-kii oo iyo attribute-kii interest rate-ka ahaa. marka sayn hore usoo aragnay interest rate-ku waa class attribute self ma isticmaalayno. haddii kalena waxaan print garaynaynaa invalid interest rate. waxay noo soo hadhay static method. marka static methodka saad aragtaan self iyo CLS midna ma isticmaalayno. account numberka haddaan rabno marka inaynu eegno inuu valid yahay ama sax yahay waxaynu isticmaalaynaa marka static methodkan. waxaan leenahay hadduu accountigu waa inuu 10 number ka koobnaadaa iyo waa inuu digit numberkiina ka kooban yahay. hadduu saas yahay true buu soo celinaya haddii kalena false. markaa faraqa u dhexeeya instance method iyo class method iyo static method waa sidaas. hadda waxaynu samaysanaynaa marka objectskii.
halkan waxaan ku sameeyay laba instance ama laba object account 1 iyo account 2 kani marka waa first account iyo magacii iyo 1000 ayaynu markaa deposit ka dhignay kana depositki waa 0 dan markaa ku sameeyay hadda account 1 dot deposit haddaan 500 oo kale ku daro oo ka bixiyo haddana markaa account 1 dot withdraw let's say haddaan ka bixino 400 markaa inay noo soo hadhaa 1100 haddaan dhahno account 1 dot display account inoo sheegay 400 aan ka saarnay marka hore 500 aan ku darnay 1500 ayuu noqday ka bacdi 400 ayaan ka saarnay waxa soo haray 1100 account numberka waa kaas magaciina inoo sheegay iyo balance ku jira hadda laakiin se haddaan print gareed dhaho account 2 dot display on kan kale iska aan ka dhigno comment aan run dhahno inoo sheegay Axmed Cusmaan inuu 0 ku jiro balancegiisu inuu 0 yahay maadaama ayna wax deposit siinay haddii aynu rabno markaa interest rate inaynu kor u qaadno waxaynu isticmaalaynaa set interest rate waa class method markaa class methodka waxaanu nidhi ma isticmaalayno instance ama object nameka markaa waxaynu odhanaynaa oo waxaanu kaloo ognahay inuu markaa aynu bedelayno class attribute inaynu bedelayno markaa waxaynu samayn karnaa meesha haddaynu hadda comment ka dhigno meesha account 1 iyo account 2 aan ka isticmaalaynay classka magaciisaan isticmaalayna waxaan leenahay bank account dot set interest rate 0.0 then run dhahna hadda inoo sheegayaa markaa interest rate updated to 2.5%. waxaad arkaysaa marka bank account ayaynu isticmaalnay meesha instance aan ka isticmaali lahayn hadduu yahay marka instance method account 1 iyo account 2 baan isticmaali lahayn hadda laakiinse bank account ayaan isticmaalnay haddii aynu rabno marka inaynu jeegarayno bank account inuu valid yahay waxaanu haysanaa static method oo ah is valid account number marka static method iyo saan hore usoo sheegnay iyo class methodku way isu dhow yihiin waxaanu isticmaalaynaa marka class namekun baan isticmaalaynaa haddaan halkan comment garayno marka waxaanu isticmaalaynaa bank accountgii bank account dot is valid number waxaanu nidhi waxaan u baahnahay 10 number 10 waa inaan print dhahnaa marka false ama true mid buu inoo soo celinayaa aan run dhahno wuxuu yidhi true numberkaas waa sax laakiin haddaan hadda gelino number 10 ka yaraan ka dhigno wuxuu inoo soo celiyay false haddaynu letters gelinana sidoo kale false ayuu inoo soo celinaya markaa farqa u dhexeeya class method iyo instance method iyo static method waa sidaas waa inoo casharka dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu